bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ayaa waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin in markii ugu horeysay gudaha dalka Soomaaliya lagu qabto doorasho gudoomiye baarlamaan oo ay ku tartamaan musharaxiin badan oo xilka u sharaxan. Fikradaha shacabka ayaa noqday sida xurta ay doorashadu u dhacday waxayna aad u amaaneen guddiga doorashada ee sida habsamida la hawsha u waday ayagoo u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee ku guuleystay xilka gudoomiyaha baarlamaanka dalka mudane Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaahiri waxaanu kula dardaarmin in xilka uu guto si hufan iyagoo Ilaah ugu bariyay inuu fududeeyo xilka adag ee loo igmaday. haddana bahawinta ganacsatada South Africa ku nool siiba Cape Town magaalada Cape Town ku nool aad iyo aan waxaan yiraahdaa ugu faraxsanahay doorashada la doortay gudoomiyaha cusub. xubnaha la soo doortay gudoomiyaha baarlamaanka dhawaan magaalada Muqdisho ku qabtay ayagu maxaa ugu baaqaysaa? ayagana waxa uu baraaq shaqo geesinimada ay muujiyaan iyo dadaalka ay muujiyaan iyo kartida ay muujiyaan in maartay Ilaahay ku garabsiyo. bismillaahir rahmaanir rahiim aragtidayda aniga hadii aan si fiican u cabiro horta waa guul soo hoyotay in 40 sano kadib baarlamaanka Soomaaliyeed la doorto haddii la doortana oo mataqaana asaguna doorto gudoomiye baarlamaan oo doorto oo si xor ay uga dhacdo baarlamaan Soomaaliya ay leedahay Soomaaliya gudaheeda lagu qabtay in ay ka dhacdo Muqdisho waxaan u arkaa guul weyn oo u soo hoyada ummadda Soomaaliyeed. Assalamu alaikum. I'm very happy because I see someone now's collection same like Egypt inshallah and you're gonna come right now inshallah everyone and I'm very happy and everybody is very happy because his collection now in Somalia 20 years now no government now is right now. aniga waxaan u arkaa doorasho maaragtay dadweynaha ay aad u soo dhaweeyeen qurba joogta qaar koonfur Afrika joogo taasoo ay in professor oo la doortay waxaan u aragnaa inuu rajo weyn oo ka bedeli doono oo dhaamo doono in gudoomiye baarlamaanka hore inuu in badan ka fiicnaa doono sidaan jeclana aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan isdhihi karaa wajh cusub ay leeyimaadeen baarlamaanka waa ninka loo doortay waa nin cusub waa nin khibrad u leh sida la sheegay marka waxaan aaminsanahay inuu wax badan oo maaragtay uu ka bedeli doono wadanka. toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaahiri ku guuleystay tartankii doorashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii uu u tanaasulay Professor Cali Khaliif Galleer oo la tartamayay waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo qaaradaha kala duwan ay u hambaliyeen xilkan uu ku guuleystay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaahiri. Cabdillaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, wadanka South Africa.